waxaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay degmada guriceel khaliif cabduqaadir Macalin Nuur oo ah gudoomiyaha mu'aasasada Macalin Nuur soona noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii sagaalaad ee dawladda Soomaaliya iyo wasiiru dawlihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya khaliifka ayaa soo dhaweyntiisa waxaa ka qayb qaatay boqolaal dadweynaha iyo maamulka degmada guriceel ee dawlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha ku-xigeenka koobaad ee degmada guriceel Bashiir Cabdiraxmaan Sheekay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan khaliifka wuxuuna uga mahadceliyay mu'aasasada Macalin Nuur sida ay dadaal dheer ugu gashay sidii ay dadka danyarta ah ee ku nool gudaha degmada guriceel wax u bari lahaayeen waxaan ku soo dhaweynaynaa degmada guriceel waxaan leenahay sheekheena Sheekh Cabdulqaadir ku soo dhawow degmada guriceel ku soo dhawow degmada iyo maaragtay bulshadeedii kala duwanaa waxaan leenahay marka waajib insaarna ayaad gudateen ku soo dhawaad ayaan leenahay ayagana wafdiga iyo maaragtay khaliifka intaba bulshadana waxaan leenahay aad iyo aad ayaa u mahadsantiin insha Allah taala wixii kalimaad ah oo ujeedadii iyo safarkii iyo waxyaabo badan ayaa insha Allah taala mu'aasasadu deegaanka ay ka haysay asaga ayaa maaragtay khaliifka noo sharixi doona waxyaabo badan oo la xiriirtay jaamacado iyo maaragtay waxbarasho free ah oo aan ka rajaynayno mu'asasadana waa ay jireen insha Allah taala haddeertaana waad garan kartaan heerka ay marayso xagga waxbarista madaarista diiniga iyo madaarista maaragtay maadiga intaba ee ka socda degmada oo mu'asasadu ay hayso runtii waxaan hilmaami karayna ma ahan waa uga mahadcelinaynaa ardada iyo maaragtay waalidka waqtiga badan ayagana ku soo qaatay inay wax ka bartaan mu'asasadan insha Allah taala waxaan leenahay maantay guushini ayaa maaragtay gaarteen sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay qaar kamid ah bulshadii ka qayb qaadatay soo dhaweynta sheekha khaliif cabdulqaadir iyo wafdigiisa ee maanta soo gaaray degmada guriceel asagoo qorshooyin badan iyo qabaal badan ka maaragtay inuu u wado deegaanka arjayna hadii Ilaahay qaalaqa ogolaado waxaan rabnaa sida maamulka degmada u soo dhaweeyay si lamid ah u soo dhaweynaan oo ku hadlaya afka daayirta degmada waxaan leenahay khaliif soo dhawow deegaanka degmada guriceel ku soo dhawow runtii magaaladan wax badan ayaa kaaga baxsan waadna dareemi doontaa shucuurkeeda iyo maqaamkeeda insha Allah wax badan ayaa kaaga baxsan Ilaahay qaalaqa ogolaado warka inaan badina ma rabno hadafkanaga iyo maqaamkanaga maanta wuxuu ku egyahay soo dhaweynta khaliifka iyo wafdigiisa khaliifo ku soo dhawow anu magac ganacsatada ku hadlaya dhammaan ganacsatada degmada guriceel way soo dhaweynaysaa ugu dambeyn khaliif cabduqaadir Macalin Nuur ayaa ka warbixiyay ujeedka socdaalkiisa wuxuuna sheegay inay dhagax dhigi doonaan jaamacadda Imaam Shaafici farciyeeda gobolada dhexe haddii la yimaado shaqo loo imaanaya insha Allah taala wixii jirana waa la kormeerayaa jaamacadda Imaam Shaafici waa dhagax dhig rabnaa hadii la yiraahdo inta hadda joogo macadka qiraa'adkana waa la furayaa macallimiinta diyaaradda ay la saarayeen waa soo waday oo lagu baranayo qiraa'adka oo macallimiinta maaragtay shahaadada haysta oo ijaasaadkana haysta oo nabiga ku abtirsanaya calayhi salaatu wasalaam tobanka qiraa'o akhrinayo waa wada diyaaraddan soo saaray marka macadkina waa la furayaa jaamacadina insha Allah taala dhismadeeda waa la dhagax dhigayaa hadii la yiraahdo intaan joogno Farxaan Axmed Abdi TV-ga caalamiga ah ee Galmudug xarunta ganacsiga gobolka Galgaduud